waa dalxiis iyo damaashaad aan hore looga baran degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. maamulka degmada, gudoomiyaal ka socday degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa halkaan oo ah deegaanka Cirfiid oo ka tirsan Hilwaa u yimid qaadashada waqti degan, casriyeyn ay u sii dheer tahay kaalimo suugaan oo qofkii cod isku haya uu heeso kaban lagu laray ku soo bandhigay goobta. cabdirasaaq cali maxamed alcadaala waa mid ka mid ah dalxiisayaasha damaashaadka u yimid doogga degmada Hilwaa, wuxuuna ka sheekaynayaa sida jawigu yahay. waa dalxiis aad u qurux badan, dhalinyaro badan baan galabta isugu timi. wallaahi waa dareen aad iyo aad u qurux badan, waana ku faraxsanahay. waana dareen muujinaya dal jacayl in qofku uu dalkiisa ku dalxiiso. aadna waan ugu faraxsanahay xilli roob ah inaan maanta soo booqno degmada Hilwaa, waliba banaankeeda. waxaan kaloo uu ka turjumayaa inay tahay magaalada Muqdisho ammaan ay tahay, oo baadiyaheeda iyo gudaheeda labadaba aanu ku dalxiisayno. marka farxad aad weyn bay tahay maanta, aadna ugu faraxsanahay. agaasimaha warbaahinta gaarka ee wasaaradda warfaafinta Cabdulqaadir Maxamed Cadde oo ka mid ah dalxiisayaasha halkan yimid ayaa sheegay inuu jiro tartan ka dhan ah degmooyinka gobolka Banaadir oo dhanka dalxiiska ah. saad u jeedaan waxaan joognaa meel aad u qurux badan oo ku wacan dalxiiska. waxaa socdo tartanka degmooyinka ee dalxiiska, waxaana qayb ka ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay dalxiiskan ee bulshada ku dhaqan degmada Hilwaa iyo degmooyin kale ayagoo soo dalxiis tagay inay ku qaataan meel qurux badan waqtigooda maalinta Jimcaha ah. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaal iyo agaasimayaal ka kala yimid degmooyinka kale gobolka Banaadir. waa dad fiican oo maanta soo dhaweey mudan oo wali xatee inay xoolo loo qala markii maaha. Ismaan Nuur waxa uu ka mid yahay dadka ay deegaanka u tahay waaxda Cirfiid oo ah goobtan dalxiis, wuxuuna gudanayaa waajibaad ka saaran ee ah martisoorka dalxiisayaasha u yimid deegaankiisa. gudoomiyaha Hilwaa, gudoomiyaha oo maartay waana kulli waana la cuntay صح bunana cunay, daaga cunay, xogaa cunay, wax walba yaa صح maanta halkaan la isugu keenay. صح marka meeshaan iska fadhinaa oo barwaaqada ah oo nadiifka oo waxa ku yara caradan nabadda ah. waa dad fiican oo maanta soo dhaweey mudan oo wali xatee inay xoolo loo qala markii maaha. صح ku fiicinta bal ka waran markaan oo kale markii saan doogu u jiro maxaa lagu tilmaamaa? waxaa lagu tilmaamaa barwaaqo sooran hay oo Soomaaliyeed oo ka dhigan degmada Hilwaa ilaa Cirfiid. agaasimaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta Farxiyo Samaan Maxamed ayaa maamulka degmada ku amaantay juhdiga adag ay geliyeen hawshan iyo sidoo kale inay dadku ku damaashadayaan xilligan degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. waxaa leeyahay degmadii ugu cajiibsaneed oo banaankeeda ugu soo dalxiis tagno, taas maxay ka turjumaysaa inay ammaan tahay. waana ku mahadsan yahay gudoomiye Cabdixakiin iyo tiimkiisa sida quruxda badan ee noogu casumeen dalxiiskan iyo bilicdan degmada taalo, bayna mahadsan yihiin. haddii aad ogeed goobo gaar ah oo ay ganacsato leeyihiin oo lagu damaashaado maanta way ka duwan tahay taas, waxaana bulshada Soomaaliyeed imaanayaan duleedyada magaalada oo ay inta badan waqti wanaagsan ku qaadanayaan iyaga oo koox wada socda. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa soo dhaweyn diiran u sameeyay dalxiisayaasha maanta yimid degmadiisa.